Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Allaha u naxariistay Injineer Yariisow ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerar ismidaamin ah oo 24 bishan ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar ee magaalada Muqdisho. dalka gudihiisa ayaa wax looga qaban waayay xaaladiisa caafimaad iyo dhaawacii soo gaaray iyada oo sababtay in dhaawaciisa loo qaado dalka Qatar gaar ahaan magaala madaxda Dooxa isbitaal halka ku yaala oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay. markii aan si kooban u eegno Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow taariikhdiisa kooban waxa uu soo noqday wasiirka warfaafinta hanuuninta dadweynaha xukuumadda federaalka isaga oo xilal kala duwan soo qabtay. waxa uu haystay shahaadada heerka labaad ee jaamacadda ee loo yaqaan master degree muddo 10 sano ah oo muddo 10kii sano ee ugu dambeysay waxa uu ka shaqeynayay dalka xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay wasiirka lacagta wasiirka warfaafinta la taliye sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo afhayeenka madaxtooyada dawladda federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow waxa uu ka mid ahaa qurba joog Soomaaliyeed oo in muddo ah ku dhaqnaa dalka UK waxaana uu xubin firfircoon ka soo noqday jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan isaga oo muddo 10 sano ahna dawladda hoose ee magaalada London ka soo shaqeeyay heer agaasinna uu kaga haray. hadda waxa uu markaasi ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. xilkaasi waxa uga horeeyay in uu noqday wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu xilligaasi u magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. sidoo kale Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa xubin firfircoon ka ahaa dawladda Soomaaliya boos isaga oo sidoo kale dadka siyaasadda aad u falanqeeya u arkayay in ay si aad isugu dhow yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa ugu dambeyntii ku geeriyooday dalka Qatar iyada oo meydkiisana la filayo in dib loogu soo celiyo dalka iyada oo dalka dib loogu soo celiyo si loogu sameeyo aas qaran.